xogayaha fulinta ee dowladda hoose ee degmada Berbera Suhayb Maxamed Cali ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo gunaanadayay tartan kooxaha heerka saddexaad ee kubadda cagta ee magaalada Berbera uga socday muddo bilaa garoonka kubadda cagta ee Berbera. Xogayaha fulinta ee dowladda hoose ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda hoose ahaan ay ka qayb qaadanayaan dhiirigelinta dhalinyarada heer kasto ay tahay. runtii isboortigu faa'iidada uu leeyahay caafimaadka qofka iyo dhisidda jidhkiisa wax qarsoon maaha. sidaa darteed waxay ka mid tahay waxyaabaha prioritiska ah ama awlawiyaadka ah in la isgarab taago da'yarta oo la dhiso aqoon ahaanna laga dhiso jismi ahaanna in laga dhiso waxa weeye waa siyaasad ka go'an qarankeena oo hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo taasaanu ku shaqaynaynaa taasaanu waxa weeye marka dadaalka iyo activity-ka يعني وحوي مركان ولا قرب تاجنا هاي هير قبل هان هي دقم أهمبا يشدوها وسارد عيارها قبل كساحل مصطفى محمد علمي يوجدوميها جديدة عيارها هير دقمو عبد الرشيد سنيرة أي يجون الله بدل مسؤول بك هالله ترتكاسي أنا ما أنت سوق بقبلنا كوب كيكو هير كصدحات ومدبلا يمكن كالسعودية جرون كنا لبية طوان كوحد لبية طوان كوحد وحكي صباح لاينس iyo kooxda Chelsea aniga oo ku hadlaya ama gudoomiyaha gudiga kooxda oo maanta halkan ay midna fartan ku loolamaya waxana si gaar ah mudan maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera tartankan ciyaaraha kooxaha heerka saddexaad ayaa waxa ka qayb qaadanayay ilaa 12 kooxood oo kooxaha heerka saddexaad ah waxaana halkaasi isugu soo haray labada kooxood ee maanta koobkaasi ku kala qaaday rikoodhayaal waxaana koobkii la guddoonsiiyay kooxdii ku guuleysatay Cabdikariim Saciid Saalax Home Cable TV Berbera.